السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaan rabaa tusaale yar qof walba oo dhageysanaya inaan siiyo tusaale yar midaas oo ku saabsan salaada maanta annaga aan tukanno iyo salaadii saxaabadii iyo taabiciinta siday ahayd. markaas waxaa ku soo baxaya farqiga noo dhaxeeya. wax yar ila dhageyso qisada Urwa bin Zubayr. Urwa bin Zubayr wuxuu ahaa mid ka mid ah taabiciinta, wuxuuna la dhashtay saxaabiga jaliilka ah Abdullah bin Zubayr. abiisna wuxuu ka mid ahaa 10 mubashiriin waa Zubayr bin Awwam. Urwa bin Zubayr waxaa dhacday lugta ayaa waxaa ka asiibay cudur ama xanuun ku kalifay in lugta laga jaro. markii ay dhakhtarada oo dhan u imaadeen, qoladii lugta ka jaraysayna u yimaadeen, waxay ku amreen inuu cabo qamri ama shay maandooriye ah si uusan u dareemin xanuunka. sababtoo ah xilliyadaas ma aysan jirin maanta waxa jira ee daawooyinka casriga. Urwa wuu ka diiday maadaama uu nin imaam a'immatul muslimiin ka mid ah, taabicina ah, caalimna ah, wuu ka diiday wax maandooriye inuu isticmaalo. waxay ku yiraahdeen waa yahay maxaa xal ah. wuxuu yiri iyo ogolaada aan salaada tukado, markii aan salaada galo oo aan sujuudo lugta jara waxa toontaana sameeya. sababtoo Urwa bin Zubayr markuu salaada galo wuxuu ahaa mid adduunyo dhan qalbigiisa ka baxdo oo qalbigiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu ku tacalluqay ya aakhiro. wax dareena adduunyada ku saabsan ma uusan lahayn. markii uu salaada galay oo sujuuday ayay bilaabeen lugta inay ka jaraan. lugtii markii ay gooyeen dhiigii ayaa halkaas ka soo burqaday, kadibna waxay ku shubeen saliid gargarayso. markii saliidii lagu shubay meeshii inay dhaawac tahay, Urwa wuu u dulqaaday wuu adkaysan waayay xanuunka, kadibna wuu miir daboolmay. meeshaas waxaa ka dareemaysaa Urwa bin Zubayr khushuuc inta la eg ayuu salaadiisa lahayd. annaga salaadeena maanta waa sidee lug iska dhaaf in laga jira ama xubin jirkaaga la taabtee. bal waxaana laga kari lahayaa war adduunka inta yartaa 10 daqiiqo ilaa hor taagan tahay, qalbigaaga dunida ka saar, qalbigaaga adduunyada ka saar, qalbigaaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xir. Ilaahay yaa hor taagan tahay. markaas qof walba naga mid ah inta badana dadkeena qof walba haduusan jamaaca salaada ku tukanayno imaamka oo san la soconin, kaligiis markuu tukanayo waxa laga yaabaa inuu sujuudo sahwi la yimaado. hadii la weydiiyo mid annaga naga mid ah salaada maqribka sheekha muxuu ku tujiyay suuratul faatiha markii laga soo tago, waxa laga yaabaa inuu aqoowayo suurada sheekha oo salaada ku tujiyay. saxaabi kamid ah saxaabadu wuxuu leeyahay waxaan booqday oo leeyahay guriga ummul mu'miniina Aisha xilli barqa ah inaan salaamo ayaan doonayay. waxaan maqlo yiri ayadoo salaad ku jirto oo ku celcelinaysa aayad quraanka ah famanna Allahu alayna wa waqana adab as-samum. way ooynaysaa way ku celcelinaysaa yiri. marka waxaan isdhaw yiri iska soco, markaad hadhow soo laabato danahaaga soo dhameysato u soo laabay salaan. markii aan soo laabtay danay ka soo dhameystay ayadoo sidii u taagan ayaan u soo laabtay ayuu yiri. bal salaada sunna ayay saxaabada sidaas ugu dadaalayeen. maxaad u malaysaa mid waajibka taabiciinta sidoo kale mid waajibka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu adoonsaday maxaad u malaynaysaa? Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qad aflaha almu'minuun, waxa guuleystay oo liibaanay mu'miniinta alladheena hum fi salaatihim khashi'un, kuwa salaatooda ku khushuuca ee khushuuca la yimaada. walaalka ama walaasha muslimada ahay waa sidee salaadaada dib isugu laabo. ma tahay salaadaada mid khushuuc leh? qofka haduu yahay qof salaadiisa ku raaxaysanayo oo macaansanayo, xaqiiqo waxay tahay salaadaas inay tahay maqbuul. hadaad aragto inaad salaada tukanayso oo jamaacada laazimayso oo masjidka aadayso ama kaliga aad tukanayso laakiin xumaanta aysan salaadaas ka reebaynin, ogow salaadaada ma ahan mid la aqbalay. sababtoo salaada markii la aqbalo waxa lagu gartaa qofka ay bedeshaa. inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. sababtoo salaada markii la aqbalo waxa lagu gartaa qofka ay bedeshaa. inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. salaada waxay reebtaa waxyaabaha fuxshiga ee xun ee liita iyo munkarka waxyaabaha la inkiro ee munkaraadka way reebtaa. walaalayaal waxaan isku dardaarmaynaa
salaada maadaamay tahay shayga ugu horeeya oo aakhiro lagu weydiinayo oo salaada lagaa xisaabinayo oo hadday salaadaada toostay acmaashaada inta kalena toostay, hadday salaadaada xumaatay acmaashaada inta kalena ay xumaatay, aan iska tiirino, aan iska adkayno, aan ku dadaalno salaada oo aan khushuuc la imaano. markaan ilaahay subxaanahu wa tacaala hor istaagnana aan iska ilaawno adduunyada oo dhan, aan iska ilaawno. markaan ilaahay subxaanahu wa tacaala hor istaagnana aan iska ilaawno adduunyada oo dhan, aan iska ilaawno. intaas ayaan idinkula dardaarmayaa. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.